madaxa xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reemiga ee degmada Filto ee gobolka Liban ee deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Nuur Yuusuf ayaa kormeer dabagal ah waxa uu ku tagay goobaha ka socdo nidaamkan dib u dejinta oo dadka xoolo dhaqatada looga dhigay xoolo dhaqato beeraley goobaha kala duwan ee uu madaxu tagay ayaa waxa isugu jireen dhulka loo diyaariyay wax soo saarka goobaha kala duwan ee si fiican ay uga baxeen dalagyada kala duwan ee ku teedsan wabiyada Ganaale iyo Daawa oo hareerahan ka mara degmada Filto madaxu warbaahinta uga waramay inta uu ku jiray kormeerkan dabagalka ah waxyaabaha uu soo arkay ama uu kala kulmay goobaha dib u dejintu ay ka socoto goobaha loo sameeyay dib u dejinta loo bilaabay dib u dejinta 2003 qabaleega Baandheer waxa degan tira dad la dejiyay oo ka kooban 730 qoys dhammaan motorada u baahnaayeen 24 motora waa loo keenay way isticmaalaan waana adeegsadaan sidaad arkaysaan bagaleyda halkan ku taala iyo ma garanaysaa dalaga kale halka ku yaala babayga iyo ay ka kooban yihiin ayay soo saarteen dadkii tirada dhan 490 qoys guud ahaan dadka halkan la soo dejiyay waa dad firfircoon oo model noqon kara marka la eego barnaamijka ka faa'iideysiga wabiyada iyo dooxooyinka inay yagna waxa timiday ma garanaysaa tabcadaan beeraha oo wabiga iska agmaraya ay ka faa'iideystaan wax ka soo saartaan ay ma garanaysaa ay jeebkooga lacag gasho ayaa timiday waa kuwan iyaguna qaar ka mid ah dadka ka faa'iideysanaya nidaamkan dib u dejinta ee ku dhaqan santarada ama tuulo hoosadyada hoos yimaada degmada Filto ee gobolka Liban oo iyaguna warbaahinta uga warbixinaya nidaamkan dib u dejinta iyo sida ay uga faa'iideysteen waa iska biilaan jirtay xareeda roobka ee lagu tacan jiray waa iska biil jirtay mar waxbaan ka heli jirnay mar waa iska guban jirtay mar waa iska guuri jirnay oo buurahaas maxaan ku raaddaa ayaan aadi jirnay nolosha idaad nool adag bay ahayd hadda noloshu way fiican tahay xilligii maxaan ku raahdaa aan doono oo mirihi ama ay naga yaraadaan ama may ka dhahay maxaan ku raahdaa ganacsi wixii ku raadsanayna ay naga yaraadaan motorada iska saarnayna hadda dhibaato waan ka baxay maxaan ku raahdaa dib u dejintii aad bay faa'iido u gaartay qabriid awr waxay qabriid dad isku guuraa oo marna dhankaas wax ama marna dhankaas wax ma ahayd hadda markii dib u dejinta loo sameeyay beerihi maxaan ku raahdaa loo qaybiyay motorada loo keenay horta laba laab ayay ugu faa'iideysteen noloshooda waa isbedeshay caruurtii waxbarasho u heshay maxaan ku radaa dhulkii ay tabcadeen wax soo saar tayala oo maxaan ku radaa isku filnaansho ay gaareen haatan dhulka degmada Filto oo si fiican looga faa'iideystay nidaamkan ayaa wabiyada waxa ay haatan keeneen biyo aad u fara badan maadaama lagu jiro xilliyadii guga waxaana meelo fara badan oo kamid ah goobahan dib u dejintu ay ka socoto buux dhaafiyay barkadaha iyo balliyada biyo aad u fara badan taasoo sahashay nidaamkan wax soo saarka Axmed Kaabe TV-ga caalamiga ah Universal Jigjiga